عليكم ورحمة الله وبركاته. هديت هاي مركو بوري في مقال كله نصدر جرال كذا كعسمت هاي بس كده من نصدر هذه يوم استنتهي كسر مقال كين التوانات هركا الناس عليه أسبوعان يا ضوات كان كسر مقال كعسب عاب أنا جو حنجعله إن المركز تو سهل أنقاد قاعدة كدب موطأ صارنا meeshaasna waxay ahayd meeshii aan ku degi lahaa kadibna mootada waxaan jeclaystay inaan halkan ooga dego waan ka tegay laakiinse ninka ayaa markaas wuxuu yidhi lacagteeda isii haddaa halkan aa ku degaysay kadibna waxaan dhahay haye lacagtaada hoo waa iska sii bixi kartaa ayaan dhahay anigana markasta waxaan jeclaa inaan markaas aan heesaha meesha aan ka qaadqaado kadib meesha ayaan waxaan dhahay cidla waaye laakiinse dad ma arko anigana markaas zaid ayaa markaas u baqayay waayo cidla ayay ahayd meesha kadib waxaan dhahay meeshaan dad may soo maraan maxay maanta cidla la tahay aniga markaas ceelka lixsanka ayaa i gadutay kadibna cabaar markaa joogo waa iska fadhiistay waan daalay cabaar markaa fadhiyay ayaan waxaan jeclaystay inaan dhaho xagee ka baxeen dadkii mana arko kadib heesta ayaan iska sii qarqaraacay laakiinse waan daalay oo zaid ayaa u daalay kadib waxaan dhahay dad meeshaan ma soo marayaan inaan iskaga taga waayo kadib xoogaha markaa fadhiyo oo aniga zaid uga cabsoonayo ayaan waxaa jeclaystay inaan heesta qaado kadib waxaa arkay ilmo soo socda waan farxay runtii ilmihii markay soo socdaan waxaan dhahay wariyaayo soo leexdo kadibna waxaan dhahay kabanka ayaan qaraacayaa heestii u dambeysay ee lacagta iska dhiibo kadibna ilmaha waxay dhaheen waa ogolnahay kabanka ee noo qaraac anigana waxaan dhahay hadda in qaraacayaa dhegeysta heesta kadibna waxay dhaheen lacagta sheega aan ku siinayno kadibna waxaan dhahay waxaa isiisiin intaa ay rabtiin kadibna waxay isiiyeen lacag aad u badan anigana waa iska qarqaraacay gabanka runtii zaid ayaa u faraxsanaa waayo laba cunug ayaa waxay isiisay lacag aad u fara badan anigoo markaas rabo inaan haddana dad sii sugo waana qiyaamay ilmaha markaa qiyaamay zaid ayaan u faraxsanaa waayo lacag badan ayaa ka dila waayo aqli may lahayn anigoo meesha fadhiya cabaar oo joogo ayaa waxaa arkay naag dharman madow qabto oo ii soo socoto dhankayga kadibna waa ii imaaday waxaan dhahay heesta u dambaysa ayaa lagu qaraacayaa ee lacagta dhiib sida ugu dhaqsiyaha badan haddaba meesha ma mari karti lacag la-aan kadibna waxay tiri maxaa kaa qaldan adiga maana aqoon ii leedahay yoo aqoon ii malihid anigana meeshaas waa ka carar runtii kadibna kabankayga ayadaa la wareegtay heestan ayada ayaa qaaday runtii waa la yaabay waxay qaadaysa hees aad u cajiib leh anigana markaas meesha iskaga cararay ayadana waxay dhahaysay ana cunayo dadka madoonayo sheekada halkaas ayay ku dhammaatay saxaabay isla muuqaalkaas ayuu dhamaaday subscribe like share comment aad iyo aad u mahadsantahay